قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله qofka dadka u soo gudbiya waxa khayrka ah waa sidii dadkii ku dhaqmay amba sameeyay khayrkaas oo kale ajarkaas oo kale ayuu leeyahay haddaba walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen ajarka inagama qadiye waxa uu yahay barashada qur'aanka kariimka iyo fadli gaar ah iyo nimco gaara ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku khuseeyey oo khaas uga dhigay dadka uu ilaahay fadligaa siiyey haddaba baro qur'aanka kariimka ah familygaaga iyo qoyskaaga iyo ubadkaagana bar waxaa idin diyaar ah markaz maahir qur'aan online oo adigoo gurigaaga jooga aad qur'aanka kariimka ah ku baran kartid qaab online ah haddaba ka faa'iidaysta fursadan qaaliga ah markaz maahir qur'aan online oo telefoon numberkiisuna idinka muuqdo shaashada isaga oo ah WhatsApp. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما ولا لها قيمها إي قدرين تمضن كحدا channel كينا فاطمة منا channel خير يبروا قبضا أيان ذي رجينيا ميل والبودافة دوني ذاك لتشوكتان يحل والبأ oo idin soo gaadho videogan qisadani waa qiso ka mid ah qisaskii carabta ee runtii aadka aad u xiiseynayseen intaanan qisadan gudagelin waxa aan mar walba idinkula talinayaa walaalayaal inaad ka faa'iidaysataan maraakiska qur'aanka ee halkan aan soo dhigo ee dhammaantood aan kala dhicin culamo subxaanallah yani maasha allah tabaarakallah ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka uu baray ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaani mayno cidna ilaahayna yani laa nuzaki cala allahi axadan ilaahay cidna uma ammaanayno qof walba ilaahay baa daalacanayo og laakiin intaynu ka arkayno runtii waa dad laga faa'iidaysan karo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankii baray diyaarna u ah inayna baraan marka adigoo gurigaaga jooga goob walba oo joogtid ka faa'iidayso fursadahan qaaliga ah oo adigoo xitaa malcaamada caruurtaada geeya meel walba daafaha dunida kala joogtid macallin gaar u ah oo one to one caruurtaada ilmo walba goonidiisa maaragtay online ahaan ugula fadhiisanaya ka faa'iidaysta waqtiga caruurteenu waqtiyo badan bay wax daawadaan waqtiyo badan iyo juhdi badan ayaa maaragtay waqti badan baa inaga luma wax maala yacni oo la daawanayo laakiin wax muhiim ah haddii internetka loo isticmaalo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar iyo xasanaat ayuu ilaahay nagu siinayaa waana la isweydiinayaa waqtiga iyo waxaan la daawanayo ee waqtiga badan lagu luminayo aakhiro waa laynagula xisaabtamaya wax faa'iida ah aynu kaga faa'iidaysano aaladahan ilaahay noo sakhiray haddaba qisadani waa qiso ka mid ah qisaskii carabta waa qiso ka dhacday Sacuudi Arabiya runtii qisaska aan soo gudbiya waxa aan ugu talagalay inaynu qiso walba cashar kala baxno waa ogtihiin oo qiso walba waxay wadataa cibradeedii haddaba intaanan cibrada u gudagelin qisada aan idinku maaragtay aan idiin soo bandhigo qisadani waxa ay sheegaysaa waxa dhacay markaa oo jira waa dad hadda waqtigeena nool waa qiso cusub oo wax hadda dhacay nin ayaa waxa uu qabaa amba uu qabay xaaskiisu waxa ay u shaqaystaa ninkani shaqo mushahar yar oo iska meeldhaxaada ayuu qaataa lacag badan ma qaato caruur ayay haystaan isagii xaaskiisuna waa shaqaysaa marka iyadana waxaa soo gala mushahar isagana waxaa soo gala mushahar waxa kale ee sii caawiyey xaaskiisu dhaxal ayay heshay oo markaa waxa laga yaabaa waalidiinteedii ama cid ka mid ah family-geedii inay dhaxashay khaasatan waalidiinteedii dhaxal ayay markaa haysataa lacag dhaxal ah dabcan diinta islaamkii siday dumarka u karaamaysay gabadhu waajib kuma aha inay iyadu yacni ay qoyskeeda family-geeda caruurteeda iyo odaygeeda inay iyadu biiliso iyada waajib kuma aha iyadu waxay hesho iyada xaq u leh say rabta inay ka yeesho waana karaamada iyo wanaaga iyo cadaaladda ay diinta islaamka haweenka ay siisay iyo siday diinta islaamka dumarka ay u qiimaysay kadibna waxa dhacday inay gabadhani lacagtii iyadu ay dhaxashay odaygeeda way ogtay inuu dhaqaalihiisu iska yara daciif yahay mushaharkiisu iska yara daciif yahay laakiin si wanaagsan bay isaga nool yihiin because iyaduna waa tan shaqaysata reerka dhinac bay ka kabtaa iyadoo waajib ku ahayn waxbay iska haysataa oo ugu yaraan iyadu masruufkeeda iyadu wixii gaarka iyadu ahaa xataa ayay mushaharkeeda ka iibsan kartaa odaygeeduna waa kan uu u shaqeeyaa dhaxalkan ziyaadadihiina waaba lacag ziyaada ahooda ay iska haystaan kadibna amba iyadoo iska haysato kadibna zawjadani waxa
waxay go'aansatay zawjkeeda inay hadiyad yaro wanaagsan ay kaga farxiso waxa ay u soo iibisay bahal baabuur oo cusub maasha Allah tabaarakallah baabuur qurux badan ay u soo iibisay iyadoo markaa ka soo iibinaysa lacagtii dhaxalka ahaa ay haysatay maasha Allah waxay ku tiri zawjkaygiyow baabuurkani waa baabuur qurux badan oo cusub oo aan kugu talagalay hadiyad in aan kaaga dhigo waana baabuur inagu aynu aayayno aynu ka faa'iideyno safarkeena iyo markaynu baxayno amba holiday u baxayno amba magaalada dhexdeedaba maaragtay in aynu danaheena ku qabsanayno baabuurkan ayaa yani reerkeenana dee waad ugu adeegaysaa adigana hadiyad uu ku yahay maasha Allah tabaarakallah aad iyo aad ayuu ninkii ugu farxay baabuurkii طبعا سعودي عربية ودول آديات أبلارن ترين كوما بدنا ترين كو هذا يسميين جدة مكية مدينة معرفة ترين مرة أو قولي قدو حتشري الرياض الدمام سان في المنطقة الشرقية ترين كلا يشري برهورة لكن ترين ما دو كوما بدنا قاديت كالوجو رافع هذا نقف ديارة سوق راعين مقالوين كلا دوان سعودي عربية دول آدو بلارن وحالوجو رافع قوادي ذا jidadkoodu aad iyo aad bay casri u yihiin marka baabuur ay dadku ku safraan markay magaalooyinka kala duwan ay u safrayaan khaasatan qofku markuu qoyskiisa ka haysanayo holiday u baxayaan magaalo ka magaalo wadanka aadka u weyn ay u kala maaragtay gooshayaan baabuurada ay qaataan taasi waxay muhiim uga dhigtaa qoys walba inuu baabuur wanaagsan markaasi haysto baabuur reerkiisa ku filan baabuur tayadiisu fiican yahay oo meelo badan uu ku gaari karo runtii marka ninkani baabuurkan sidaas ugu farxay labadooduba waxay ka soo jeedaan laba magaalo oo magaalooyinka yaryar riyaad ka baxsan maaragtay mantiqada riyaad mantiqada caasimada ka baxsan oo markaasi riyaadna way degan yihiin caasimada oo ay ka shaqeystaan qoyskani marka baabuurkii waxay kaga faa'iidayaan inay qoyskeedii inanta xaaska iyo qoyskii odayga maaragtay reerka amba wiilka maaragtay amba ninka reerka aabaha in ay gurigii familigiisa amba aabihii hooyadii iyo qoyskiisii soo salaamaan amba qoyskii gabadha ay soo salaamaan kadibna waxa dhacday in ay holidaygan maaragtay amba ciid ayaa waqtigii ciidda ayaa la soo gaaray ciidii markii la soo gaaray zawjadii waxa ay tiri waxaan rabaa inaynu qoyskaygii soo booqano oo aynu ciidda la soo qaadano waqti waayo buu yidhi zawjkii xaas wuxuu yidhi reerkaagana waana soo booqan reerkaygiina waana soo booqan oo marka laba magaalo yaryar oo riyaad ka baxsan ayay kala degan yihiin labadooda qoys marka wuu ogolaaday in qoyskeeda lasoo horbooqdo halkiibay alaabtoodii iyo dharkoodii iyo wixii ay qaadanayeen oo dhan baabuurka xaggii dambe shandadii gaariga xagga dambe ay ku ruteen caruurtoodii bay ka haysteen way baxeen qoyskii markay sidaa ku baxeen waxay tegeen gurigii familigii gabadha qoyskeedii bay u tageen way soo booqdeen xoogay bay la joogeen kadib zawjkii wuxuu yidhi waa inaynu baxno oo aynu maaragtay soo booqano qoyskaygii markaa amba anaa bixi amba idinkuba way raaci doontaan oo aabahay iyo familigaygii walaalahay iyo dadkaygii baan soo booqan gabadhii waxay tiri meel aynu u soconnaa markay reerkoodii tagtay ayay tiri meel aynu u soconnaa ma jirto waqtiga ciidda oo dhan waxaynu ku qaadanaynaa daban ciidda dhowr cisha loo dabaaldegaa marka waxay tiri maalmaha ciidda oo dhan familigaygeenu la wada joogaynaa طبعا qoysasku markay dhibaatadu imanayso bahal shaytaan oo badaha ka yimaada ayaa reeraha maaragtay soo dhaxgala bahalkii shaytaanka haba gabadhii maaragtay istusay oo u sheekayay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim waxay ku tiri ninkii meel ay noo soconaa ma jirto wuxuu yiri walaalay iska joog adigii caruurtaadu ana baxaya oo familigayga soo booqanaya oo ciidii ku soo tahaniyadeynaya ciidda kadibna waan idin soo iman waan idin soo noqon waxay ku tiri meel aad baabuurkayga u kaxaysanaysaa ma jirto way baxday walaalaheed ay la hadashay waxay ku tiri ninkan baabuurkan ana iska leh ana u soo iibiyay mana raba inuu baabuurkayga meel u qaato isaguna meeshu doonaha tago laakiin baabuurkayga ma iga kaxaysan karo walaalaheed markaa waxa la rabaa qoysku markay dhibaatadu dhacdo ay matalanba qofka dumari ay waxyaabo ka soo cabato qofkan kala celinaya labadan qof amba se dhexgelaya inuu caqli ku soo kordhiyo ayaa la rabaa inuu xaaladda dejiyo ayaa la rabaa haddaba midaan xaaladda dejinin oo walaalaheed kamida ayaa walaalaheed markay ku tiri nin rag haddaad tihiin ninkaasi baabuurkayga yuu ka haysanin
ayaa intuu soo cararay baa wuxuu ku yidhi waryaa baabuurkan walaashay baa iska leh baabuurka dhig furihiisa haddaad rabtid waad bixi kartaa cidina kuma haysata adiga ninkii oo xanaaqsan ayaa gurigii ka baxay markuu gurigii ka baxay wuxuu sameeyey markuu gurigii ka baxay 3 kilomitir oo dhulka waa iska garanaysan Sacuudigu waa dhul saxara ah oo kulayl badan xilliga kulaylaha oo qofka bani'aadamka uu lugayn karahayn waxa uu dantii ku kaliftay 3 kilomitir inuu ninkii lugeeyo ilaa petrol stationkii ugu sokeeyay amba kaalintii shidaalka ugu sokeysay halkaas uu baabuur ka helay yani baabuuradan tagaasida uu ka raacay kadibna aad iyo aad uu ciishooday ninkii uu xanaaqay markii uu taxigii qaatay baabuurkii gaadiidka ahaa sii kaxaynayay uu halka kaalintii shidaalka uu ka qaatay waxa uu geeyay meeshii aabihii iyo familigiisu isaga ay deganaayeen magaaladii isagu ka soo jeeday asal ahaan reerkiisu deganaayeen uu rabay inuu soo booqdo ayuu ugu tagay reerkiisi markuu halkii ugu tagay waxa uu sheegin horta uu la ciiday waxay ku yiraahdeen baabuurkaagii mee wuxuu yiri dhexdu igaga xumaaday oo uu kala jabay oo maartay waxba ka jabay baabuurkii kadibna reerkii buu iskala ciiday waxba uu sheegin niyada kama jabinin intii hore markii ay iska wada ciideen la casuumay qaraabadii soo booqdeen casuumaadkii iyo maartay booqashadii u dhamaatay ayuu runtii u sheegay walaalihii iyo aabihii buu la shiray wuxuu ku yiri soo dhawaada gabadhaydu amba xaaskaygu waxa ay maxay hayday aabaheed lacag ay reerkoodii ka dhaxashay calishaan ay familigoodii ka dhaxashay cid ay ka dhaxashay garamayn laakiin cid ay ka dhaxashay ayaa maxay hayday isagu garanayay anaan garanayno qisada kuma jirto qofkaas ay dhaxashay laakiin inay dhaxal heshay uunba qisada ku jirta marka lacagtii dhaxasha ahaa amba lacag ay iyadu khaas u leedahay ayuu gaari iigu iibisay baabuurkiina sidaas iga soo qabsatay dhibaatadaasi furaha halka noo dhig walaalkeed igu yiri iyadiina waxay tiri baabuurkayga ma qaadan kartid baabuurkan inay iyadu iibisayna walaalaheed may ogeyn oo dadku wuxuu bay arkayeen ninkaygan gaariga wata laakiin familigeedu iyo cid kale toona may ogeyn gabadhan xaaskaygu inay iyadu igu hadiyeysay baabuurka laakiin waa tan oo ay ceebaysay baabuurka anaa siiyay mana qaadan karo barta hadhigo waxaas ay tiri marka familigiisii waxay yiraahdeen khair insha Allah maalintii dambe u keeneen bahal baabuura oo cusub oo brand new ah oo sidii kii cusbaa oo kala ah waxay ku yiraahdeen anaga isu tagnay walaalihii iyo aabihii dhamaantoodu isu tageen lacag bay ururiyeen waxay uga soo iibiyeen wakaalada baabuuradan baabuur cusub oo brand new ah baabuurkii cusbaa ay hadiyad uga dhigeen way siiyeen waxay ku yiraahdeen niyahow baabuurkan adaa iska leh familygaaga ku siiya gabadh kuguma sheeganayso orado reerkaagii doono xaaskaagii doono wuxuu yiri xaaskayga waxaan ka yeelay aniga ii jirta idinku waa ku mahadsantiin baabuurka ay siiseen jazaakumullahu khair يعني فامليغي اون ka filanayo meeshan ka filanay iga soo baxay ayaa tihiin wiilashii walaalihiis iyo aabihii oo u kacay markay arkeen ninkan inay dhibaato qabsatay kadibna ninkii baabuurkiisii uu qaatay magaaladiisii Riyaad ayuu iska tagay magaaladii markuu tagay gabadhii xaaskiisii dabcan shaytaankii uu ka degay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim shaytaankii uu ka degay kadibna waxa ay bilowday in odageedii ciidi markay dhamaatay booqashadii qaraabadeedii wixii ay dhamaatay waxa istir xaaska gurigaaga ku noqo odagii mee hadaba telefoon u dir ma ka qabanayo uu ku dhigaa uu kama qabto uu ku dhigaa kama qabto xaaladda iyadoo ku jirto yaaban ayaa ay samay walaalkeedii u kacay dhibaatada ula kacay ninkii hadiday ku yiri wariya baabuurka faraha halka dhig waa gaarigii walaashay ninkii ku yiri ninkii maaragtay qabsaday 3 kilomitir kulaylaha uu kaligii u socday ninkii miskiinka ayaa ay ku tiri wariya adaa gurigeygii dumiyay adaa ninkaygii maxaa hayday sida ku qayliyay oo furaha ka qaaday hadda iyada ku tiri samee sida haddaba waxaan ka rabaa inaad imika qaadid baabuurkayga igu qaadid anigii caruurtayda gurigeygii aad geysid waa kan ninkaygu xanaaqsay telefoonkayga ma qabanaye waayay buu yiri walaalkii uu soo kaxeeyay gabadhii gurigeedii buu keenay gurigeedii markuu keenay furihii ay haysatay ay istiri furihii albaabka ku fur albaabkii sakarootad miyaa la yiraahdaa qufulkii albaabka waa la bedelayba furihii ma ba furmay albaabkii u furmi waayay ee aragteen qufulkii laga bedelay ayaa ay garaaceen albaabka iyadii walaalkeed iyo caruurtii ninkii baa ka furay wuxuu yiri waa maxay soo dhawaada maxaa jira waxay ku tiiraahdeen hay salaamu calaykum assalaam de zawjadaadii baan ku keenay walaalkii yiri xaaskeen waxay tiri de gurigeyga waan ku soo noqday odagii wuxuu ku yiri walaalkii gurigeedii ma aha gurigani xilligan gurigeedii ma aha gurigani walaasha waad haysataa gaarigeediina iyadu way haysataa
maca asalaama halkiibuu gabadhii ku furay gabadhii muraaro dilaac halkiibay faamiligeedii ku noqotay reerkoodii baabuurkeedii haysataa zawjkeediina sidaasi ayay ku weyday runtii qisadani ninku waxa haboonayd cashar gabadhaasi way u ahayd oo waata isqoomamaysay markuu telefoonkii ka qaban waayey inuu yidhaahdo waxaad siisay inaad igu qaanabtid may ahayn oo igu ceebaysid may ahayn oo aad igu xukuntid may ahayn inuu yidhaahdo oo xaaskiisa iska cafiyo oo caruurta ka dhexeeya iyo duruufaha maaragtay badan iyo wanaag badan oo ay kolley samaysay qof walba wanaag waa leeyahay kulley waxa weeyaan wax badan oo kale inuu xeereeyo ay ahayd uu xasuusto wanaag kale inuu soo xasuusto wanaag ay samaysay inuu xasuusto ay ahayd laakiin de shaydaan baa meesha ka adeegtay laakiin anigu maxaan u jeclaystay casharkan inaan usoo gudbiyo iyo qisadan waxaan u jeclaystay haddaynu haweennahay waana wax dhammaan haweenku ay ka siman yihiin waxaynu jecel lahay haddaynu wax yar qofka maaragtay qofka dumar ee odaygeeda u qabato amba ay siiso inay sheegsheegto maalintay xanaaqda waxaasaan ku siiyo waxaasaan kuu qabtay amba waxaa ima qabatid amba xalka ka dhacday dhadhadhadha marka waa laga fiicaya runtii soomaalidii horena waxay odhan jireen hadday disti kuula timaado miyaa la yidhahda amba weel amba waxaas walba hadday kuula timaado waa laga jebiyaa si ayna kuugu qaanabin marka runtii waa laga fiicanya dhaqankaasi naftayda iyo idinka dhammaan haweenka waan kala talinaya dhaqankaasi inuu noqdo dhaqan aynu ka guurno waa dhaqan aada u fool xun runtii halkaasi ayuu ahaa marka casharka aynu ka faa'iideyno qisada tan intaynu ku kulmi doono barnaamijyo kale iyo qisas kale iyo casharo kalena waxaan idinkaga tegayaa fi amaan illah astawdactukum allah aladi laa tadiic wadaaci wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika ashhadu ana laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله qofka dadka u soo gudbiya waxa khayrka waa sidii dadkii ku dhaqmay amba sameeyay khayrkaas oo kale ajarkaas oo kale ayuu leeyahay haddaba walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen ajarka inagama qadiye waxa uu yahay barashada qur'aanka kariimkii fadli gaar iyo nimco gaara ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku khuseeyey oo khaas uga dhigay dadka uu ilaahay fadligaa siiyey haddaba baro qur'aanka kariimka faamligaaga iyo qoyskaaga iyo ubadkaagana bar waxaa idin diyaar markaz maahir qur'aan online oo adigoo gurigaaga jooga aad qur'aanka kariimka ku baran kartid qaab online haddaba ka faa'iidaysta fursadan qaaliga markaz maahir qur'aan online oo telefoon nambarkiisuna idinka muuqdo shaashada isaga oo WhatsApp